قصة عجيبة dadku kala caqli badan nin ayaa xaaskiisa waxa uu kaxeeyay quraan akhris kadib markii uu isiri jinni ayaa hayo haddaba gabadhii markii quraanka lagu akhriyay jinkii ayaa hadlay oo yiri sheekhow anigu waan ka baxayaa gabadhan laakiin hal shuruud ah haddaba sheekhii markii hore uu ka diiday inuu ka dhageysto shuruudda jinka balse markii dambe ayaa uu aqbalay oo yiri bal sheeg shuruuddu maxay tahay jinkii ayaa yiri gabadhan waan ka baxayaa laakiin ninkeeda ayaan gelayaa ninkii oo meesha fadhiyay hadalka jinkana markii uu maqlay ayaa uu argagaxay sheekhiina jinkii waa uu ka diiday arrintaasi balse jinka ayaa ku yiri sheekhu ma garanaysaa sababtaan u doonayo in aan galo ninka cajiib daawada qisadan qisooyinka la midka ah ee wanaagsan si aan hada jeer isu tabinno muuqaalka like saar siina share gareeya mahadsanidin jinkii ayaa yiri sheekhu ma garanaysaa sababtaan u doonayo in aan galo ninka sheekh ayaa yiri bal ii sheeg sababta doonaysa inaad barato quraanka kariimka ah higaada carabiga kutubta shariicada islaamka ducooyinka adkaarta adiga jooga gurigaaga goobtaada shaqo hab online ah hadii jawaabtaadu ha tahay maxadka baytul xikma ayaa kula diyaara ee nambaradan hoos ku qoran kala xiriir mahadsanid jinka ayaa ku yiri sheekhu ninkan salaada ma tukado ninka ayaa soo booday oo yiri beentiis way sheekhi ayaa korkaas ku yiri jinka gabadhan ka bax gurigoodana ka fogaan hadduu tukun waayo ninkan jinniyo gal oo ka dhax qayle jinkii baa yiri hagaag taas ay noo ballan ah gabadhii waa ay caafimaaday haddaba muddo kadib gabadhii waxay u wacday sheekhi iyadoo u mahadcelinayso sheekhi ayaa yiri bal ka waran ninkii gabadha ayaa ugu jawaabtay sheekhow masaajidkaba isaga ayaa fura oo mu'adimkaba isaga ayaa ka horeeya sheekhi ayaa yiri Allah ayaa hanuunka iska leh intay gabadhii qosashay ayaa sheekhi ku tiri sheekhow waarun oo alle ayaa hanuunka iska leh laakiin anigu meelba laygama haynin jinni iguma jirin kaliya waxaan rabay oo aan doonayay in ninkan salaada uu tukado war tuko ayaan ka kari waayay cajiib waa gabar saalixad ah oo wanaagsan gabadhaas waxay ahayd gabar wanaagsan sababtoo ah waxay ogeed taariikh salaadku in aanu baraka lahayn khayr lahayn isla markaana ay ku socoto lacnada ilaahay la lacnadayo la habaarayo la inkaarayo baraka la'aanna guriga uu ku nool yahay iyo abaar iyo qalabsanaan iyo wareer uu kula sugan yahay haddii zawjka uu yahay qof aan tukanin ama xaasku ay tahay qof aan tukanaynin ama awlaadda guriga joogta ay tahay kuwa aan tukanin inna lillahi wa inna raajicuun wallahi meeshaas waa meel lagu kaarsamay meel lagu habaartamay weeyaan walaal muuqaalkan haddii ku soo gaaro inta aad nooshahay tuko intaan lagugu tukanin tuko ayaa maqli jiray intaan lagugu tukanin tuko dulucda qisadan waxaa weeyaan taariikh salaadku inaanu lahayn wax faa'iido ah isla markaana baraka la'aan uu la joogo dadka la nool taariikh salaadkuna haddaanay sidii gabadhan caqli iyo kaarta aysan u keenaynin in la kala socdo ama la kala taga ayaa roon haddii muuqaalkan ku soo gaaro like sar muuqaalka siina share garee mahadsanid